noo sheegtaa nabigu goortii uu dhashay intaan la gaarin in la muujiyo shaygu markuu shay cibaada iyo noocan yahay waxaa la rabaa meel loogu shaago inuu leeyahay wa ilaa haddii kale uu noocan noqdo waa shay aan waxba ku xidhnayn haddii wax ku xidhan yihiin nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi caddayn lahaa haddii dhalashada nabiga wax ku xidhan yihiin ilaahay baa waxa la yiraahdo caddayn lahaa dadka uu caddayn lahaa nabigu wixii nabigu caddeeyay salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma ka mid ahay dhalashada nabiga wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu caddeeyay kitaabkiisa ku caddeeyay maxaa looga tagay waxaa looga tagay inaan wax xugun ku xidhnayn waxaa looga tagay inaan wax cibaado ku xidhnayn waxaa wax ku xidhnaayeen ee la isla qaatay waa hijradii nabiga salawaatu maalinka Rabiicul Awwal labiyo tobankeyga waa maalmo fara badan waa maalinkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu hijrooday waa maalinkii sallallahu alayhi wasallam la soo diray waa maalinkii culimadu ay sheegaan ay tahay maalinkii uu guursaday oo farxada waliba niyada lafteedu waa maalinkii diinta islaamku ay kor noqotay waa maalinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhashay sida mashhuurka waa maalinkii uu dhintay marka inaad ku qaydo kaliyaata maalinka uu dhintay waxa uu arkaa yashubha ama waxa weeyaan ittiham waxaan gashanaynaa inuu xataa maalinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam soo diray aanu mawliidayno dhalashadii nabiga aanu mawliidayno waxa weeye nabiga weyniintiisa aanu weynaynayno waxaas oo dhan maskaxdeeda waxa weeyaan ku wada kulminaynaa hadii maalin waxa weeyaan maalin hadii qolka raadixa aanu qaadano maalin waxa weeyaan aan sideedo kale ka dhigno manala mawliidaya sheekh Ahmed leedahay waxba laga tagay ama aad isleedahay kuweylu baa laga dhigayaa la soo baxo isagoo dhameystiran akhri waxa ma ka tagtay tahay asalka ku saabsan ciida iyo ihtifaalaadka waa mas'ala gaala laga soo qaaday faraacinada u horeysay nasaarada ka qaadatay raga banaynayna waa kuwan kale waa laga soo qaaday haddeer dadka ku nool adduunyada ama meelaha gaaladu joogtay taabkii sheeg qof kasta oo dhashaa maalinta uu dhasho uu xusaa ciid buu u sameeyaa uu dabaaldegaa waa dhaqan horeyna u jiray weligiina jiray haddana weli sii jira bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ba'd allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada minbar xiwaar miiska wada hadalka oo ay marti u yihiin culimada diinka الشيخ عبد الكريم الشيخ بشير وفريق يسوع هرجيسة كسعودة دنك علماء الدين كصوفية أشاعرة إيو الشيخ محمد نور فارح وفريق يسوع هاي سورا كسعودة دنك علماء الدين كسلفية الشيخ عبد الكريم سودو ودوها يا شيخ بارك الله فيك الشيخ أحمد سودو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد هذه أيضا ما تصنتهي وأنا دوهي شيخ أحمد أنت كذب وهرب لنا سنين موضوع ثاني مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فدقي صدحات أما دودي صدحات نيسكا كبحرة يضو دوده قريه aad ka heli kartid dhanka iyo social media-ha YouTube-ka miiska wada hadalka iyo page-ka uu ku leeyahay Facebook-ka dadka la socda dooda tacliiqinaya ama comment-iga ka bixinaya waxaan ugu nasaxaynaynaa inay hadalka wanaagsan iyo ay ku dadaalaan taageerayaashu ay isxakameeyaan عندي سؤال وقبل علماء الدين كان أي وسط وصف قرآن إن شاء الله سأل قيبتها لبعض صوص عطوي دي سؤاله يسوق فيه أنت كده وحنجعل الله هنا نقول بدون موضوع عني إنه كده هنا صدح قيبوت جعل هنا نصف عن الله إذا تبقى على دجنه وحنكون هنا الشيخ عبد الكريم وقبع مولد كإلا بيقول إن البنان تهاي الشيخ عبد الكريم سوده waxaad noo sheegtaa nabigu goortii uu dhashay intaan la gaarin in la muujiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار الكونين بميلاد أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل مولد سيد الورى ببطن مكة أم القرى
وأبرزه 12 من أول ربيعين، فكان ربيعا للقلوب وغياثا للمؤمنين، والصلاة والسلام على من أنقذه الله به الخلائق أجمعين، سيدنا محمد نور العيون، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد وحنوب الأنسانين ضدي أهيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا احتفاله قلوين يوم بنات هاي مسمى بنانو وحن شعلها ينكو ريسيو حلقي لدلي صلى الله عليه وسلم صوبانه علماء waxay isku khilaafeen xid meeshii lagu dhalay iyo caamkii la dhalay iyo zamankii la dhalay iyo bishu tayahayd. Culimadu waxay yiraahdeen salahan meeshii lagu dhalay oo kale culimada sida raajixa waxa weeyi in lagu dhalay daartii Maxamed ibn Yusuf in lagu dhalay subhanahu sallallahu alayhi wa sallam oo meel mubaaraka ahayd dadkuna ay barakeysan jireen. Waxay kale isku khilaafeen meeshii waxaan jeedaa waqtigii la dhalay subhanahu sallallahu alayhi wa sallam sida mashhuurka ah waxa ay ahayd in la dhalay 12kii Rabiul Awwal. waxaana cadeynaya taas in waxyaabihii waaweynaayo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sida hijradii iyo xilligii uu dhintay suubanuhu sallallahu alayhi wa sallam in dhamaantood bay ahaayeen 12kii Rabiul Awwal. qowlkaasi waa qowlka mashhuurka ah cinda ulama wa cinda almuslimiin. sida raajixa ah waxa weeye in la dhalay maalinkii 8aad ee bisha Rabiul Awwal. waxa soo naqliyay qowlka al-Hafiz al-Qastalani fi al-Mawahib al-Ladaniyah wuxuu leeyahay waliida sallallahu alayhi wa sallam li8 khalat min Rabiul Awwal ayuu leeyahay sheekhu. qowlka waxa soo naqliyo ka Ibn Abbas wa Zubayr baa soo naqliyay waxa weeyaan Humaydi laftiisu soo naqliyay, Ibn Hazmi baa soo naqliyay, Qadaa'i baa soo naqliyay. waa qowlka raajixa ah waxa weeye saxiixa ah. ama al-mashhuur ama sida caanka ah muslimiintu waxay ihtifaalaan 12ka bisha Rabiul Awwal ay ihtifaalaan. kolka waa sida waxay kale muslimiintu aysan isku khilaafin in la dhalay subhanahu sallallahu alayhi wa sallam maalin isniina la iskuma khilaafin لأنه رسولك يدي ذاك يوم ولدت فيه أيا يدي subhanahu sallallahu alayhi wa sallam. kolka waa sida sheekh. وكان مثلا ماليا ها واسكا كسوق كوبين هيك بدي ضريه وحق واحد سنه شيخ احمد كسلو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسألة كسابسن مولدك هي برامج كأنه كسابسن يا ما وحن كهاللينا قضاء كوباد عن قبل وناي وعلى رشاد النبي مركب كوباد عبد الكريم وحوس صغي إن مسألة هي مسألة مختلفة. dhowr maalmoodna wuu sheegay maalin ka mid ah ayaa loo badan yahay oo raajix ayuu yiri. maalinta raajixa uu ku tilmaamay maalin aan ahayn in la dhigona wuu sheegay. marka hadiiba maalintii nebigu dhalay ay tahay oo mawlid lagu tilmaamay, maxaa keenay maalinta raajixa in laga tago oo maalin marjuuxa la aado? wuxuu yiri maalinta 8aad ayaa raajix ah, 12aadna waa la dhigaa. marka waa laba qowl oo mutanaaqidaan ah aan isqabanayn. waxaa raajixa ama xoog badan garanay 12aad saasaa loo dhigaya wixii la mid ah, ama 12aad buu dhashay ama 8aad bisha 8eedii buu dhashay oo maalintaas la dhigaa garanay. laakiin waxaa raajixa 8aad waxaana la dhigaa 12aad. waa laba qowl oo aad arkayso waxa ka dhaxeeyay yihiin. intaa markaan ka imaado waxaa la yiraahdaa masaladan aqwaal fara badan baa ku jirta, laakiin sida mashhuurka ilaa 7 qowl ayaa la sheegaa. waxaa la yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa la dhalay maalintii 2
bisha la rabiul awwal waa la sheegay 8 waa la sheegay 9 waa la sheegay 10 waa la sheegay 12 waa la sheegay 17 waa la sheegay koob iyo 20 waxaan leeyahay 22 waa la sheegay bila kalena waa la sheegay sida laba qowl oo ku jira in Ramadaan dhashay laba maalmood kala duwan Ramadaan kamid ah u dhashay kadalika safar inuu dhashay marka khilaafka masalada ku jira waa khilaafka saw balaaran oo xataa ka baxsan rabiul awwal marka qoliyaha banaynaya ee la waan dhigaynaa waxaa marka horeba laga rabaa inay sugaan maalinta nabiga uu dhashay sallallahu alayhi wasallam oo yiraahdan maantaas uu dhashay oo la isla qaatay oo go'an hadday taa diidaan ay mukhtalaf noqoto waxaa laga rabaa dhowr iyo 10 maalmood ee kala duwan la sheegay maadaama wixii la isla ogolayn xilliba ama sanadba ama marba in la qabto si xataa maalmi wax kamid loo waafaqo laakiin 12 ayaa qowl 12 kaasaan dul fariisanay wax lagu rajaxay xoog ku yeelatayna ma jiraan la daliil ala dalika oo kitaab iyo sunnah toona ah iyo waxa la yiraahdo aqwaal iyo ijmaac la isla ogol yahay inuu maalinta dhashay laakiin waa iska waxa la yiraahdo waxaan xilli loo hayn iyo meel la iska fariistay ama lagu dul dhacay ayay u muuqataa aysan ahayn xaqiiqo iyo shay la hubiyay oo maalintaas nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhashay waxa la yiraahdaa xataa kuwa sameyn jiray qaybo kamid ah waxay sameyn jireen inay kala duduwaan oo maalmaha ay sameeyaan sideedoo kale ay sameeyaan xilli 12 ay mar sameeyaan waxaan ka wadaa maalinta bisha 12 rabiul awwal mar ay sameeyaan 8 rabiul awwal mar ay sameeyaan maxaa la yiraahdaa xilliyada ku kala yihiin 12 mar ay sameeyaan kala duduwi jireen laakiin sida mashhuurka ah qoliyaha waliba Soomaalida agtooda caanka ka waa 12 ama in badan oo dad dhiga mawlidkan agtooda caanka ka waa in 12 bisha la dhigo weeyaan marka su'aashu waxay tahay maxaad ku kala doorateen maxaad uga tagteen qowlka saxiixa ama waxa la yiraahdo 8 aad ku sheegtay oo u doorateen qowl laga raajix yahay وما سنت هاي وحد يقول لنا شيخ عبد الكريم واسكال سؤاشة شيخ عبد الكريم سؤاشة سلفت إذا نجار هنا كويديو وحد تري النبي يقول حلمي وبشيء وعلى سكوك العفو أقوال برنا إلى علماء وكله بعض الشيء قولك سيدنا إنه راجح هي بعد كل شيء هذا فيه ولا سومالينا وحي مولدا 12 لمولد يو محاد دليل او شيغيا انو نبغو دشاي كوا كلنا انو نقدر نشيغيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا خلاف كيغا انو وانا سو خلاف سنهي nimanka culimada naga soo horjeeday wahabiyada la yiraahdo ma an maalinka la dhalay sallallahu alayhi wasallam in la dhigo waxaan isku khilaafsanahay dhigistaba hadii ay leeyihiin maalinka 8aad ka dhiga anuguna waan idin wada ihtifaalaynaa maalinka 8aad baan u wareejinaynaa marka taas waxa weeye waa ta muxuu hayay aan isku khilaafsanahay waa dhigista islahaanteeda aan isku khilaafsanahay iyagu waxay leeyihiin lama dhigi karo ama waxa weeye xilligii subhanahu la dhalay sallallahu alayhi wasallam قولك مشهور كه علماء أكتوده كم مشهور كه أي الشيخ عبد العزيز ابن مسعود وصون قلنا يو وحوي إلا دلي صوبانها لبيه طبعا كي بشهر ربيع الأول إلا دلي في عام الفيل إلا دلي وحيا فرد بنظنوي حوجين يعني تاسو تحلي صوبانها وهجرودي أي حلي جاء هاي حلي وبنتينا حلي جاسي هاي مركا وحا حاجة على قياسان كراين حلي ودشينا أي حلي جاء هاي كل كان مخا أما خلاف كيجو كما صليسنا maalinkii la dhalay ee wuxuu ku salaysan yahay waa ihtifaalka mabnaayahay mise ma banaan waa soo soconaa noqdadaas mabnaayahay mise ma banaan xukunka waa soo soconaa laakiin Sheikh Abdi Karim qowlashan 8 ahay oo sheekhan soo naqilay adna aad sheegtay qayb kamid aha maxaa lagu doortay maxaa daliila maxaa muujinaya inuu nabigu 12 rabiul awwal dhashay iyadoo culimada qaar waa weynayeen 8 diibu dhashay horta waxaan khilaaf ka taagnayn oo aan la isku khilaafi karin in qowlka mashhuurka cinda ulama oo ibn Kasiir sheegay qowlka mashhuurka ah inuu yahay in la dhalay 12 rabiul awwal in la dhalay
wax khilaafo ka taagan ma jiro in qowlkaas uu mashhuur yahay ama waxa weeye aqwaashan kale ee ah 7 iyo 8 iyo maalmaha kale la dhalay waa aqwaal culimada qaar ay rajixaan culimada qaarna ay sarajixin weeyi waxaan jeclahay sheekh Ahmed si uu waqtigu inooga dhicin oo hal su'aal aynan waqtiga iskaga qaadin waxaan jeclahay qof kastaba in waxa mudaakhalo la siiyo ama xilli uu soo galo qofkii su'aal jeclaada inuu waqtigiisa uu ka jiro qofka kale uu san waqtiga ka qaado jeclaan lahaa صح ويه شيخ أحمد كسولو شيخ عبد الكريم واد مقشع horta masalada labada arrimood baan isku haynaa xagga dhalashada taariikhda maadaama mas'alada isku khilaafay tahay taariikhda nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi dhashay waxay ku doorteen waa mashhuur macna ma samayso laakiin waa raajix oo waxaas uu raajix ku noqday waa macquul waa war la qaadan karo la aqbali karo laakiin khilaaf baa jira khilaafkii maalmihii maydan wada dhigin oo maalmihii la nabiga dhashay waxaad sameynaysan maydan wada sameyn maalinta doorateen waxaad ku doorateen oo daliil maydan sheegin waa qodobka labaad maxaa sababay in la doorto oo laga doorto maalmaha kale afar arrimood ayaa suuragal ah in ay noqon kari lahayd ama culimadu ay sheegaan waa dhalashadoo kale tusaale ahaan iyo hijradii iyo diritaanka ilaahay uu diray iyo geeridii nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi حافظ بن حجر وحليه وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرق له 4 مولده ومبعثه وهجرته ووفاته فرجح عندهم جعلها من الهجرة لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين السنة أفر الرمضات أي صورة قال هيد نبي صلى الله عليه وسلم عليه لو قد taariikhdan ama la qaato waxa la yiraahdo dhalashadiisii iyo diridii ilaahay uu diray iyo hijradii iyo geeridii nabiga sallallahu alayhi wasallam laba kamid ah khilaaf kama marna in la ayimo sanadka iyo xilligu dhashay wa ama alwafatu fa a'radu anhu lima tawaqqa'a min dhikrihi min al-asaf alayhi tanna waxa la yiraahdo arrin murugo iyo arrimaha la xidhay haydo waa la isaga tagay كدبنا وإنما أخروه من ربيع الأول من المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان من المحرم نحر كما كان صوروريو وحلا دورتي هجرة دي على دورتي إن تاريخ لقد دقو لما دوران على شدي يوحلا راهدو صادرتانكي وفات كينا ينوو شيء سابت اللوغة لكن هجرة دي أي على دورتي labada shay horaan soo sheegnay mabcadka iyo mawlidkuna khilaaf kama marna marka waxaan la isla ogolayn oo khilaaf leh oo intaas oo shay ku yimid hal mid ama hal shay looga doortay iyadaan lahayn shay lagu rajaxo ama daliil wax cadaynaya waa murajjax waxa la yiraahdo waa tarjiix bila murajjax loo oran jiray masalada noocaas khilaafka noocaas leh haddii la yiraahdo anagu kama hadlayno oo inaysan banaanayn shaki nagama jiro bidcana ay tahay oo way soo socotaa laakiin waxa laga hadlayaa waa dhalashadii xataa la iskama waafaqin maalimihii la sheegana may wada dhigin sababtay halka maalin ku doorteenna may sheegin waa halka ugu horeeysa aan suuragal baahayn warkan war la aqbali karo inuu yahay hal meel iyo hal xilli sheega waxa uu doorateena sheega cadaynteeda iyo daliilkeeda aad ku rajaxdeen markaana hal leedan ka war la aqbali karo هنقدر وركينه. لكن شيخ أحمد مسائل علمية ميل بدن أيها راجحة مركا أولي هذا جمهور تاسيدن قبطة وقول كجمهور تراجعة ما حكوا جماعة الجمهور هان لورها مسألة waxay ku xiran tahay waa mas'alo weynayn iyo cibaado iyo ciid la xiriidha xilli ay u baahan tahay la isla ogol yahay hadda islaamka waxa la yaqaanaa 3 ciidood buu leeyahay 3 ciidood leeyahay waa labada ciidood caadiga waaweyn iyo maalinta jumcada waa 3 mid walba xilligiisa iyo maalintiisa iyo la yaqaano shayga cibaadada saas oo kale ayaa la rabaa inuu waadax u noqdo kuma xisaabtamin karno oo ma oran karno ciida labada ciidood ciidul adha iyo ciidul fitri
ولا بشيء مختلف وانت سقول بها كجرا ولا سلو قليه جمعينا ولا سلو قليه شيء مركو شيء عباده يهنو عن يحي وحال الربا ميل لوgu shaaga inuu leeyahay wa illa hadii kale uu nooc noqdo waa shay aan waxba ku xirnayn hadii wax ku xiran yihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam cadayn lahaa hadii dhalashada nabiga wax ku xiran yihiin ilaahay baa waxa la yiraahdo cadayn lahaa dadka waa cadayn lahaa ma kamid ahayd dhalashada nabiga wixii nabigu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam alayhi ma kamid ahayd dhalashada nabiga wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu cadeeyay kitaabkiisa ku cadeeyay maxaa looga tagay inaan wax ugu ku xirnayn waxaa looga tagay inaan wax cibaado ku xirnayn waxa wax ku xirnaayeen ee la isla qaatay وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تاريخنا يكدكتين المسلمين شيء عبادنا وحال روا شيء واضح وعد إنه النقضة أما اللي قلت الماما أيوه إنه هي إيدي وهي لمدة هاي شيخ أحمد ما صنت هاي شيخ عبد الكريم المقدية شيخ عبد الكريم شيخ أحمد وكذا واشيء إن تاريخ الإسلام كمركز لقرية لو قلب لصوت إليه أي كم هاي تاريخ الإسلام كلمشة النبي المقصر علينا أي كميت هاي هجرة النبي كل يوم هجرة اللي هو الصلاة أي كميت هاي حلي ونبي الشيء حلي جل الدراي حلي جو انتي أي كميت هاي النبي جا وحال وشيخ الشيخ علماء مع الشيخين إن الإسلام أقول هو الإسقوة فقصية هاي إنه النبي انتي لم يتمكن هاي الأول يدور الإسقوة خلافة إنه الشيء maalintuu nabigu dhashay oo la isku khilaafay iyo maalintii uu dhintay oo la isku waafaqsan yahay maalintuu dhintay ee la isku waafaqsanaa miyaa loo dabaaldegaya kusoo horta xilliga la dhigayo mashhuurka meelo fara badan baa ay culimadu qaataan oo qolka mashhuurka la qaataa iyadoo haddana raajix uusan sida ahayn حتى وحوي عند علماء اللغة أي قاطع وحكي لي سكده أي قاطع وتصالحان ملها لا يراهضو أسماء ستها أو كلا وحي علماء يراهدان وهو بالغو رفعيايو نحو هاي ألف بالغو نصبيايو يا بالغو ترى قول كاسوا قول كمشهور لكن سراجح سدا ما وحركة مقدرة لو قدرة قول كمشهور كاين لقاطع وحما عيبه كتير ما جبت عند علماء الوصول لكن زوحان ويدينيا وذلك النجا سهر كذا haddii bish maalinkaas sideedaad aad ka dhigano mana la waafaqaysaan oo mana la ixtifaalaysaan oo mana la liidaysaan aan weydiin lahaa waa ka jawaabi doonaa markii ay su'aalihiin jawaabin gaar horta su'aasheeda ka jawaab ku soco taasaan horta weydiin lahaa waqtigan xilliga mashhuurka ah in la qaato culimo fara badan baa nooga horeysay al-Hafiz as-Suyuti ayaa sheegaya oo leh waxa weeyaan 12 Rabiul Awwal mawliday oo mawlidka dhigay الشيخ أبو الشامة شيخ الإمام النووي في البداية والنهاية كسوغان هو عبد الرحمن بن إسماعيل وإبراهيم بن عثمان شهاب الدين أبو محمد المقدسي الشيخ الإمام العالم الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ شيخ دار الحديث الأشرفية وحلي جاسو دقي وحلي جاسو موليدي ومركي لو ويديه وحال يري إنه من البدع المستحسنة وبدع وحو كمid yahay loo wanaajistay fiican in la sameeyana oo fiican yahay markalena wuxuu yiri waman ahsana mabtada'a fi zamanina mimma yaf'alu kullu 'aam fi al-yawm al-muwafiq li mawlidihi sallallahu alayhi wa sallam maalinka waafaqaya buu leeyahay maalinka waafaqaya mawlidka sallallahu alayhi wa sallam in la sameeyo waa maalinka waafaqaya buu yani wuxuu jeedaa 12 Rabiul Awwal wuxuu waafaqaya in nabiga sallallahu alayhi wa sallam la dhalay marka waa sida لكن زو حن شعلان لها إن سؤال عن لقب بلعبين موضوعة أما مناظرة هدو مركي لصير دمينا يلا قصوا وضع فاروقين سؤالها وحي سؤالها السويديين شعلان لها لكن هذه يمكن سؤالها بلا قصدي بلعبه حوي وحي يلا قصدي هرد عيون بنورك وحاجة على الشيخ أحمد سيدنا الشيخ عبد الكريم سيدنا إنه هراي قبل المي نقطة بعد نقطة هنا نوجد إنه قرر مع النبي ورشينا رمينا كل إنه ولبدي من واقصه هذا الشيء سؤال شو إيتاجن وحي تاعي الشيخ أنا ويدينه يو علي أنا ويدينه يو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن الربيع الأول الصومالي المولد ومالته لنتي مالته والنبي لنتي إن لما ولد ما يسترجع ولا الحفلة دي ولا تبا جو بس ما يسترجع
مالك ربيع الأول لبيو تبنكيغ waa maalmo fara badan waa maalinkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu hijrooday waa maalinkii sallallahu alayhi wasallam la soo diray waa maalinkii culimadu ay sheegaan ay tahay maalinkii uu guursaday oo farxada waliba niyada lafteedu waa maalinkii diinta islaamku ay kor noqotay waa maalinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhashay sida mashhuurka waa maalinkii uu dhintay marka inaad ku qaydo kaliya maalinka uu dhintay waxa uu arkaa yashubha ama waxa weeyaan ittiham anagu uma jeedno in waxa weeyaan maalinkii rasuulku uu dhintay inaan u mawliidayno taasina waxa weeyaan waa tuuma qaadi'a weeye ama waa dhanni ismiya weeye oo waxa weeyaan waa dhanniga walibana foosho xuma leeyahay hijradii halkan ku taala maalinkii rasuulku guursado halkan ku taala maalinkii la soo diray halkan ku taalo adduunka oo dhan uu ku farxay waxa weeyaan soo diristiisa insi iyo jinni ay ku bushaaraysteen oo halkan ku taala in aadaado maalinkii uu dhintay rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxaan u arkaa waxaan meesha qabanayay waa maasantahay sheekh axmed baan kusoo dhaweynaa sheekh axmed maalintuu nabigu dhashay waa la isku khilaafay sidaad sheegteen oo ilaa 8 qowl baa la isugu khilaafay maalintuu dhintayna la iskuma khilaafin oo waa rabiicul awal 12 waana maalinta la mawliido maalinta uu nabigu dhintay in la mawliido sabarka horta waa saan sheegnay masaladan waa masalada noocaasaan soo tilmaanay aan la isla qaadan oo masala mukhtalafa xilliga nabigu dhashay maalinta uu dhashay oo isniina waa la ogol yahay laakiin waxaan ka wadnaa taariikhda waxaa sidoo kale la isla ogol yahay oo muttafaq ah nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi maalinta inuu geeriyooday labada qodob waa nooca weey marka laba dhinac baan ka eegaynaa dhinac weynoo dambeeya oo masaladu maxay tahay xukunkeedu muxuu yahay waa masalada dambe masalan nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi maalintan ma dhashay weeye waxaa la isla ogol yahay oo labada dhinacba la isla ogol yihiin inay tahay masala mukhtalafa maalinta nabigu dhashay inuusan dhalan haddaba ninka dhigaya laba qodob mid baa laga rabaa inuu maalmaha la sheegay kala duwan 10 iyo zaidka maalinba mid ka doorto ka dhigo ama sanadba mid ka dhigo macquul in maalin uu doorto oo sababtu ku doortay oo ku rajaxay oo sheegana waa macquul inta wixii ka baxsani waa iska uu maaragtay maalin jeclaysi iyo taxakum aan maaragtay wax tusinaya aysan jirin weeyaan marka nuxurka iyo masalada loo yimaado cabdikariim hadda su'aashaad weydiisay arrinta uu baxayna waxaad moodaa masaladii soo socotay iyo tan inuu isku qasay tan marka intaasan kolley anuu ka oranayaa waxay ku doorteen inay sheegaan bay ahayd caddaynteeda keenaan caddayntiina ma hayaan waa tarjiix waxa leeyahay bilaa murajax waa masale waxa weeyaan mukhtalaf intaasoo qowl ay ku jiraan labada arrimood ee ah in maalinba ama sanadba mid laga doorto iyo in hal maalin laga doorto leeyahay sababtaasaan ku dooranay iyo tarjiixa iyo daliilka labadaas ayuunba macquul ah ama su'aashii iyo arrintii uu yiri ma naga qaadanaysaan marka hore sug horta waxaanu inay sharci yihiin shay bannaan oo fi shariicati al-islam ku bannaan inuu yahay sug markaa raadi in lagula qaato iyo in lagugu diido laakiin adaanba sugi karin oo waxa la ka keeni karin kitaabkii allah sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi iyo ijmaac salaf iyo culimatoona inaad tira halayla qaato waa baatilka aan ku jiro halayla gala macnaheedu weey hadda su'aashan ku weydiiyo bulshada ايش يا احمد وإير سؤال شباب ممكن جواب مش احمد سؤال ممكن جواب اير يا احمد كويس سؤال شديد ان شاء الله سؤال waxay tahay maalinta rabiicul awwal 12 keeda waa maalin nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dhintay culimaduna ay isku waafaqeen inuu dhashayna waa la isku khilaafay maalin la isku waafaqsan yahay inay tahay maalintu nabigu geeriyooday ay magaalada madiina madoobaatay maalintii ina ihtifaal iyo dabaaldeg la dhigo sidee loo arkaa alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala alihi wasaxbi wasallam ajmaciin arrintaa marka la fiiriyo laba dhinac baa laga fiirin karaa horta marka koowaad in la murugoodo iyo in la ixtifaalo waxaa habboonayd maalinta inuu qofku murugoodo nabiyullaahi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa adduunkan ka tegey oo allah subxaana watacaala ummaddan u soo diray diintan qiimaha badanna uu la soo diray marka arrinta munaasabka ee macquulka waxay ahayd qofku maalinta inuuna farxad dareemine oo muruga dareemo waa qodob
marka loo yimaado dhinaca kale iyo dhigitaanka in la dhigo masaladan la dhigayaana ma waxaan oranaynaa waxay ku faraxsan yihiin geerida nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi mise waxaan oranaynaa ma arrin kala jirta kullay qof muslim ah oo islaamnimo sheeganayo ilaahay rumaysan nabigana rumaysan lama oran karo jacayl uu jecel yahay geerida nabiga iyo arrinta dhacday ayuu sidan u sameeynaya laakiin waxaan leenahay way khaldameen طريقي baa ka khaldamay wadadii iyo sunnadii iyo طريقي ay raaci lahaayeen baa dadka noocaas oo ficilka noocaas ee dhaqanka noocaas sameynaya ka weecdeen labadii maalinta noocaas ee labada arrimood ay wada yaaleen arrinaan munaasab ahayn ayay qaateen inay farxaan ah ihtifaalna dhigaan laakiin ma oran karno oo jawaabtu ma noqon karto farxad ay ku faraxsan yihiin ay arrinta u sameeyeen laakiin nuxurka iyo xaqada waa inay khaldameen طريق khaldana ay raaceen sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay khilaafeen markaa way شعب الكريم كسروا sheekh madow horta shayga haddii la isku khilaafo macnaheedu maaha in laga tegayo gebigiisaba waxa weeyaan la baabiinaya maaha macnaheedu imika wadaadku wuxuu taagan yahay waanu diidanahay waxaana lagu baabiinayaa kaliya ta waa maalinkii oo la garanayn baa lagu baabiinaya waxaan khilaaf ka taagnay oo laba axadaan isku khilaafin in maalinkan uu yahay xataa maalinkii la soo diray subhanahu sallallahu alayhi wasallam فهاك يوم أبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمد ومالكها أما إنه بنتي أبو حكا يكوري بأد مالكي وحوي رسولك صلى الله عليه وسلم مالكي جني إنسي خلائق دورنا يكون ولا فرحين أهبا هلكن كنت على إيه محد كأدي مالكي وحوي وبنت محد كأدي أما وقتك حلق اللقبنا وقتك هذه حتى صلاتنا تكنيسو